annagu dawlad ma hayno xasan sheekh maxamuudna waxa uu ag taagan yahay dawlad nooma aha annaga shacab reer sida la yiraahaan nahay sida daarood baan nahay haddii ay ka tagto dawladna sadana waa nahay daaroodna waa nahay ummadda Soomaaliyeedna maanta wayna dhageysanaysaa kalmadahaygaas hal la dhageysto kulan ay maanta yeesheen qaar ka mid ah odayaasha gardaqameedka degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo ayaa ulajeedkiisu daarnaa 3 qodob oo waaweyn oo xasaasi ah qodobka koowaad odayaasha ayaa taageeray shirweynaha uu ku baaqay ugaaska mudug ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax ugaas kiise oo ahaa inay beesha sida isugu yimaadaan shirweyne ay ayahooda uga tashanayaan qodobka labaad ayaa waxay odayaasha kaga tacsiyeen rag ciidamada nabad sugidda ayagoo dhulkooda difaacanaya ay sida gardarrada ku laayeen qodobka saddexaad ee ugu dambeeyo ayay odayaasha dhaqanka degmada Garbaharey baaq ugu direen beesha Abgaal ee uu ka soo jeedo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona si cad u sheegay inaysan jirin cid kale oo ay u raacanayaan ama ay kala xaajoonayaan raggii mareexaan ee ay nabad sugiddu laysay ayaga oo dhulkooda difaacanayo diidanna in hub sharci darro soo galo sidoo kale odayaalka ku dhaqan degmada Garbaharey ee shirka isugu yimid ayaa sidoo kale baaq u diray dhammaan odayaasha dhaqameedka gobolka Gedo in ay shir ay ka tashigooda isugu yimaadaan dadka sharafta badan oo hoolkan fadhiya oo beesha sade mudane iyo marwooyin waan idin salaamahayaa waxaan idinku salaamahayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi madashaan beesha sade oo gobolka Gedo Garbaharey la isugu yimid waxay ku abaaran tahay abaarteedu shirka uu ku baaqay ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax shirka uu ku baaqay asaga inaan taageerno kana hadalno beesha sade dhibkii loo geystay oo ay u geysatay dawlad ku sheeg ma la dhihi karo waa dawlad ma u dhaqanto sida loo dhaqmayo dawlad waanu naqaanaa waynu arki jirnay adduunkay ka jirtaa waxa lagu dhaqmay wax la qaadan karo iyo wax aqligu ogol yahay midna ma annaga beesha sade ahana taas mana lagu sasabi doono mana lagu qaadan doono waana wax laga dhinto wax baa ka dambayn doona dadkii la laayay oo la yiri hub bay qaateen la soo aaday ayaga la raba in lagu laayo cid kale looma wado ummadda Soomaaliyeed way ogtay waa waxaad ka dharagsantihiin si kastaba ha u wateeno wixii meeshaas ka dhacay dulmiga ahayd kabiir ah waliba kolku dulmigu jiro yay kabiir ahayd dagaalkiisuna hadda ma ahayn ninkaas oo kol horu dagaalka damcay laakiin dagaalkiisu hadal dambu ku dhamaadaa baa wuxuu tari doonaaba iska yar waayo waxa naxwadiisa iyo nusqadiisu tahay ummadda Soomaaliyeed waa ogta ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaynaa waxa inta ay dheer dadkii la laayay annagu dawlad ma hayno xasan sheekh maxamuudna waxa uu ag taagan yahay dawlad nooma aha annaga shacab reer sida la yiraahaan nahay sida daarood baan nahay haddii ay ka tagto dawladna sadana waa nahay daaroodna waa nahay ummadda Soomaaliyeedna maanta wayna dhageysanaysaa kalmadahaygaas hal la dhageysto nin boqolad uu ahaabo u dhuran haddii dawlad iyo ummadnimo iyo islaamnimo la waayo ninba wuxuu ahaabo noqon taasaan leeyahay annagoo beesha sida daarooda wixii lagu sameeyay oo foosha xuma waxaan qaadan doona ma aha wax ka soo hoyda inaan helno way xasan abgaal buu dhasho waciis lukay qolay abgaal waxaan leenahay ninka ciidanka watayda xawaadla weeye oo haysta nimanka ay nabad sugidda ku tilmaameen labadaas qolo midna ciidanka amrahayay midna ninkii asagu samaystay yahay baa ka rabnaa raggii reer sade oo la laayay oo dhimasho iyo dhaawacba leh ummadda Soomaaliyeed haddaba dhaga waaweyn baan ku hadlaynaa yaa dhimasho iyo dhaawac noqotay tacsi kama dirin
wuxuu gaaray heer uu yahay hubkii kontrabanka ama raxan ha lagu duulo haddana la soo laayo xoog looga soo qaado iyo haddana gaaray intaas markii laga soo gudbo wuxuu ka dambaysiiyay in bahalka la yiraahdo haddana bahalka la yiraahdo dad u dirsado oo yiraahdo soo laaya oo caawa weli gooyaha laga fadhiyo intaas ka bacdi dhibaatada ninkaas loo geystay xasan asaga waxaan ka baqalay kuma raba ilaada xasan kuma rabno ma ku rabna xasan haddaanu sidanahay kuma rabno horay waad noolaysay horay waad noo dhacday Soomaaliya naga saartay maantana waad naxasuuqday xasan ma rabno haddaan beesha sidanahay intaas ka bacdi waxaan ugu baaqaynaa beesha waxaan horta balyo u dirayaa ugaaska iyo beesha sida halkaas intaas ka bacdi adigu iswaafajado intaas ka bacdi beesha sida waxaan ugu baaqaynaa meel alla meel joogtaba Soomaaliya waa ka faquuqanahay waxaan naga faquuqay maamulada Soomaaliya ka jira haddaan beesha sidanahay haddaan bari joogniyo haddaan gada joogno ayaan leenahay uma jirtaanu nahay mustaqbal baan leenahay inaynu isu nimaadno tashanno shirno mustaqbalkeena iyo jiritaankeenna aynu muujino oo aynu ka hadalno dawlad aan sugaynaa ma jirto maamul caawa kale sugaynaa ma jirto aqligeena iyo hantideena iyo deegaankeenna iyo maskaxdeena iyo jiritaankeenna saan ugu tashanlahay dibad iyo daakhilba waxaan ugu baaqaynaa beesha sida shir degdeg inay iskugu yimaadaan gobolka Gadow shirkaas lagu soo dhawaado meel kasta oo beesha sida ay joogto dal iyo dibadba gobolkan Gadow ka dhici rabo degmada Garbaharey uu ka dhacayaa sidaas awgeed beesha sida meel kasta ay joogto shirkaas waa inaan u diyaar garoobo midda labaad wuxuu daaran yahay shirkan rag maraxaan ah oo yaxa lagu laayay shilmadow waxa ku laayay dawladda federaalka oo Xasan Sheekh Maxamuud uu xukumo waxaan rabnaa marka Xasan Sheekh Maxamuud maraxaan uu la diriray maalinkii xukunka loo dhiibay oo gacanta ku dhigo farmaajo uu kala wareegay iyuu dagaal beesha sidoo qaada wuxuu sameeyay gobolka Gadow ciidamadii ka joogay federaalka tignikadii iyo gaadiidkii iyo ciidankii halkaan joogay buu raray wuxuu geeyay Masagawa iyo Caws Weyn waxa kale uu qaaday 100 nin oo daraawiish ah oo gobolkan Gadow u dhalatay ilaa mushaarka laga joojiyo ama la soo qaado 2 bilood markay mushaar la'aan ahaayeen baa la qaada Caws Weynaa la geeyay ninna kama soo baxsan Caws Weynaa lagu laayay hubkii uu lahaa gobolkan ciidankii gobolkan u dhashay inta waa la qaado waxa la geeyay Masagawa iyo Caws Weyn halkaas lagu laayay Xasan Sheekh Maxamuud uu la diriray beesha sida ragii uu laayay oo uu ku laayay Galgaduud ilaa ay hadeertaan kama uusan garaabin hub qaladaha meesha la soo galiyay oo kontrabaan ah hubkii kontrabaanka nimankii markay qabsadeen ciidankii dawladdu amar ku siiyay hal laayuu yiri nimankaas oo talada ugaasku soo jeedina taageerno qodobkaas qodobka kale dadka la xasuuqay sida tooska loo xasuuqay oo lagu xasuuqay cabuwada loo adeegsaday hubka dawladda iyo gaadiidka dawladda loo adeegsaday dadka shacabka ahaa oo xasuuqay oo aana hadeerta meel lagu sheegay iyo waxay sameeyeen ay jirin dadkaas asaga ah dadka laayay inay tahay dawladii in lagu cadeeyo laga rabo dawladda haday iska dhigatiraysa xataa laga rabo qodobkaas weey qodobka kale ayaasade oo dhan in laga tashto oo isku yimaado marka waxaan leeyahay waa kala hormarinayna waxaan aad kaga xunnahay kana tacsiinayna dadkii dhibkaas guriyihii ilmihii ay ka gowriyoodeen aan kaga tacsiinayna sida jahannamada dadka loo laayay oo magaca dawladda iyo gaadiidka dawladda lagu laayay aad ayaan kaga xunnahay هذا نكى هذا تدكاس أمري ودولته جديد كذي هو كذا أديكسلون تدكاس لا شعب كان عاوي إلى نبقى هنا باركيناه لكن
inaan la iloobin ee la og yahay ee dadkaas gobashooda ay maran tahay dadka ay ka maran tahay inay og yihiin inaan u sheegnaa xasan sheekh maxamuud odayaasha sharafta leh oo iga hor muuqda iyo kuwa gaararkaba dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka waa salaamantiin 14 boqolka aad ku salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib shirka wuxuu ku saabsanaa waa la sheegay rag badan baana ka hadlay inta ayada ka badanna ku dari maayo wax yar baan ku darsanayaa oo gaara oo raggu badanaa usan marin waxaan ka tacsiirinaynaa oo aan ka tiraanyansanahay raggii shiilamadow ku leeday hoosade iyo intii ku dhaawacantay baan waxaanu leenahay intii dhimatayna ilaa lilaahi wa ilaahi raajicuun intan dhaawacana allaha u boogadhayo intaas baan taas uga baxayaa tan shirka ugaasku uu cilaamiyeyna waa laga hadlay waxaa kaloo aan leeyahay ragga eedeynaya xasan sheekh hadday eed qabato hore loo eedeeyey soomaaliya oo dhan baa eedeysay adduunka oo dhan baa eedeeyey nin eed karta maaha nin ceebi kartana maaha waana lagu doorta sidaa isaga ah oo ayadoo la og yahay oo horey loo ogaa baa dibna loogu doortay sidii loo doorto tolkii kula taliyeyna wuu ku shaqaynayaa sababtoo ah ninku qabiiluu ka dhashay qoys buu ka sii dhashay magaca guud buu ku dhashay Soomaali buu yahay Soomaalinima loo doortay Soomaalinimadii wuu ka tagay haweennimadii wuu ka tagay abgaalnimadii wuu ka sii tagay qoyskiisii uu maraya meediyaasha iyo adduunka oo dhan baana looga hadlaa nin wax ka dhibayaan iyo nin maxaan ku iraahdaa raaligelin ka bixinaya dhibku geystay ma aha waxaanu leeyahay ku soo gabagabaynaa ragga la laayay waa qaan mareexaan waa qaaxa kugu maqan raggii dhibka geystay waa lagu xisaabtamaya Sambalooshe markaan ka hadlo oo ciidanka watay Sambalooshe hadda ka hor meediya waxaan ka dhageystaa asagoo leh niman hawiye ahayn wax ma xukumi kara xamar dadkii laga adkaaday baa loo dhiibay sharcigi oo dadkii adkaaday baa sharciga loo qoray wuxuu ismoog yahay cidda uu yahay baa aqoon laaya wixii lagu dhigayna waa aqoon laaya inuu sahawiye ahayn wuu moog yahay waxaan salaamayaa dadka qaaliga nagu ah oo sharafta leh oo gogoshaan wanaagsan noo soo cilaamiyey baan u mahadcelinayaa ilaahay khayr ha siiyo kuwa ayaga ah waayo ayina ka tashada hadduu inta qofku loo gogol kuu dhigo qofkaas asaga in loo mahadnaqo leeyahay mahadnaq kadib waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii lagu laayay Cabudwaaq oo beesha sade baan tacsi u dirayaa ilaahay samir iyo iimaan ha naga siiyo ayagana jannatu firdawsi allah ka waraabiyo waxaan soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax baaqi beesha sida uu u soo diray oo ballaarnaa oo dal iyo dibad uu ugu baaqay in ay aayahooda ka tashadaan oo shir wada tashi ay isugu yimaadaan baan soo dhaweynaynaa waa ugaaskana waa u mahadnaqaynaa intaas markaan kaga gudbo oo aan ku leexano dhibaatada hadda beesha sida ay rag badan ay mareen anuu hadda waqtiga in la isaga lumiyo xasan sheekh maba qababo inaan hadda maanta xasan sheekh meeshaan ku soo qaadnana annagayba ihaanan ugu tahaybo waayo hadduu qof tuuga hadduu meel kaaga dhuntood marada ka qaado asagoo qosla ayuuba ku soo fiir xasan sheekh hadduu sharaf leeyahay hadduusan sharaf lahaynba googolka waxaa ugu qoran ama ciwaanka ugu qoran bililuqo iyo barakicin iyo burbur iyo boobba ugu qoran qofka noocaasa waqtiga inaan annagu isaga lumino aad bay nasiib darro u tahay waxaan marka aad u soo dhaweynaynaa shirka guud ee ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax uu loo qaban qaabiyey beesha sado dal iyo dibad meel ay jiraan ba shirka asaga in loo diyaar garoobo
oo arrintaas iyada laga qayb qaato annaga danteena iyo nolosheennada iyo taladeena ku jirto saabsanaa saddex qodobna odayaasha taabtay oo ka hadlay qodob wuxuu ahaa baaqi ugaaska ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax ugaas kayse oo dal iyo dibadba uu ku baaqay shir beesha sida qodobkaas oo ah qodobkii dadkii beesha sida ee dawladdu ku laysay shiila madow buu ahaa qodobka saddexaadna wuxuu ahaa baaq ay jeedinayaan odayaasha dhaqanka gobolka oo looga arinsanayo dhaqankii iyo saldhiggii aayaha gobolka kaasna insha allahu tacaala waaskeysa shirkiisu ka dambeeya odayaashaan cilaamiyey aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu